daawadayaal waxaa la socotaan warka shanta galabnimo ee SBC Boosaaso idinkaga imaanaya imikana Muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay xilliga la qabanayo mooshinka ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. haddaba arrintaasi oo maalmihii ugu dambeeyay si aad ah loo hadalhayay waxaa la socday oo warbixintan eegaya waryaheena Yuusuf Cabdishire oo istuudiga xilligan igula sugan. Yuusuf soo dhawow bal waxaad nooga warantaa aan faahfaahin guud aad ka siisaa daawadayaasha xaaladda balmooshinka gudoomiyaha baarlamaanka iyo waqtiga la shaaciyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu maanta shaaciyay iyo bal wixii xog ah oo dheeraad aad hayso. waa mahadsantahay Cabdiqani daawadayaasha la socodsiinayna gudoonka baarlamaanka waxa uu soo saaray warqad uu dhammaan xubnaha golaha shacabka ka codsanayo inay si degdeg ah ku yimaadaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho haddii ay ka maqan yihiin haddii kalena ay soo xaadiraan fadhiga warqadda ka soo baxday waxa ay u qornayd sida tan haddii aan daawadayaasha uga warrano dhammaan baa la yiri xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaa si xushmad iyo qadarin ah lagu wargelinaya arrimaha soo socda in kal fadhiga saddexaad kulankiisa saddexaad uu qabsoomi doono maalinta sabtida ah ee ku beegan 11 bisha Maarso 2018 saacadu markay tahay 9 subaxnimo xarunta golaha shacabkana uu ka dhacayo ajendaha kulanku wuxuu noqon doonaa baan leeyahay mooshinka laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Cusmaan Jawaari dhammaan xubnaha golaha shacabka aan ku sugnayn magaalada Muqdisho waxaa laga codsanayaa inay ugu dambeyn ku soo galaan magaalada Muqdisho maalinta Khamiista ay ku beegan tahay taariikhdu 29 Maarso si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga uga gudoomo buu yiri salaam iyo qadarin gaar ah sidaas waxa sheegay mudane xildhibaan Cabdiwali Sheekh Ibraahim Mudey kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiyaha gobol gaarka ah ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo aan ka warqabno in mooshin laga keenay gudoomiyihii sharciga ahaa ama afayeenkii rasmiga ahaa ee baarlamaanka mudane Maxamed Cusmaan Jawaari marka xiisadan waxaad moodaa in magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka aad looga hadalhayay waqtiga rasmiga ah uu dhacayo fadhiga looga hadlayo arrinta mooshinka oo xildhibaanadu ay kala dooran doonaan inuu sii joogo meesha iyo inuu ka tago. waa gartay Yuusuf ka soo koow waqtiga la shaaciyay oo xildhibaanada maqalna loo yeeray waxay lafteedu muran ka taagnaa goobta lagu qabanayo ilaa hadda Cabdiqani arrinta loogama hadleen warqadda ku saabsan laakiin waxaa xusud mudan in sidoo kale kulan ay shalayto yeesheen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari iyo madax ka tirsan AMISOM oo la qorsheynayay in markii hore lagu qabto codeynta xarunta Efisione ee lagu doortay madaxweyne Farmaajo marka arrintaasina waa arrin saameyn leh laakiin saacadaha soo socda ayay cadaan doontaa meesha uu ka dhici doono fadhiga inkastoo aan lagu sheegin warqadan. waxa uu ahaa Yuusuf Cabdishire oo arrimaha baarlamaanka iyo waxyaabihii ka soo kordhay mooshinka Professor Jawaari la shaaciyay waqtiga la qaban doono la socday waxaana xusud mudan daawadayaal in arrintaasi ay aad looga hadalhayo guud ahaanba Soomaaliya wixii ka soo kordha arrimahaasi oo la xiriira mooshinka gudoomiye Jawaari iyo sidoo kale goobta lagu qabanayo kala fadhiga mudanayaasha ay yeelanayaan xilka ama kalsoonida loogu qaadayo Professor Jawaari inaanu idin soo gudbin doono haddii Rabbi idmo.